السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. soo gala inta samaha jecel iyo qowmiyadda Soomaali Bantu soo gala. waa idin salaam Abdiwahaab Sheekh Maxamed gabasha hiyaal macallin Shakuur Faarso Kalsan Xuseen kulligiin waa idin salaamay. Maxamed Daahir Ramadaan Arbow African Politic idinkoo dhan waa idin salaamay. soo gala maanta kulley baa aniga Ismaaciil Yare Milan Islaam waa idin wada salaamay. asxaabtayda qaaliga aan aad u jeclahay kulligiin waa idin salaamay. waa walaalkiina adeerkiina abtigiina ya waa Yaxya Shuuko Sheekh Axmed Cabdiraxmaan waa ku salaamay. Maami Juula adna waa ku salaamay. walaashayda qaaliga Maami Juula aad iyo aadan ku salaama. waan ku arkay markaas soo galaysa laakiin howlan ku jiray. Axmed Jaamac adna waan ku salaamay. Khadar Dhagax Buur waa ku salaamay. guul oo loo hubo waan ku salaamay. soo dhawaada waan baashaalaynaa maanta. waxaan ku baashaalaynaa insha Allah biidhnillaahi kariim. kulley waad aragteena u malaynaa hordhac ama waxa aan soo qoray. war niman yahow wax kasta in la isweydiiyaa fiican. waxaan u malaynayaa baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ku jiray wax la yiraahdo fasax. baarlamaanka Soomaaliya ama baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu ku jiray fasaxiisii ku soo laabtay waa la furay. kulley fasaxana waxay u qaataan aan u malaynaa inay tagaan goboladii laga soo doortay, degmooyinkii laga soo doortay. Naasir Nuur waa ku salaamay adeer. degmooyinkii laga soo doortay inay tagaan oo maanta ay soo ogaadaan ummaddaasayto wacyiga ay ku nool yihiin, dhibta iyo dheefta ay ku nool yihiin inay soo ogaadaan. kadibna baarlamaankii ay keenaan oo markaasayta ay u soo bandhigaan golaha macnaha sharci dejinta inay u soo bandhigaan oo ay doodaan. ay yiraahdaan annaga dhibaatadaasaan ummaddii mas-uulka ka ahayn aan ku soo aragnay ee dhibaatadaasayto ummaddaasayto maxaa loogu qaban karaa inay yiraahdaan. laakiin ma ahanaan u malaynaa ninka inuu meeshiisa iska tago, gobolkiisa iska tago, haddana soo noqdo oo bariiskiisa iyo ilmihiisi lasoo cuno, haddana soo noqdo oo maanta baarlamaankii iskaga soo noqdo ma ahan. okay aniga iddanna ma haystay ileen aniga qowmiyad baan ka tirsanahay. qowmiyadda Aamir Moomo waa salaaman tahay. aniga qowmiyadda aan ka tirsanahay waxaa imathilaa kulleyba waa jira dad imithila ayaa jira. waxaan ka tirsanahay qowmiyad la yiraahdo Soomaali Bantu. dad baa imithila oo way baxeen goboladii bay tageen. kulleyba wax uma malaynaya inay ka soo qaadeen wax dhibaato ah ummaddaas haysato ay u keeneen guddoomiyihii baarlamaanka ama guddigii maamulka ay u keeneen. ay yiraahdeen war dhibtaana annaga haysataa maxaa la dhihi jiray dadkii aan mithilaynay. wallaahi inay jirinba. waayo waxaan maqlayay war bad baa loo doodayaa, dekad baa loo doodayaa oo la wareejiyey la sheegayaa ya. waxaa la leeyahay waxaa macnaha na dhibaya maxaa la dhihi jiray qoladan la leeyahay imaaraadka ayaa la leeyahay bahashii kale oo baddayna iyo dekadayna iibsanaysa. dada hadda waxaan maqlayay oo maanta oo intay u doodeen dadkoodii ay u doodeen oo haddana ay u doodi hayaan baddii Soomaaliya. bare goodax ayaa ka mid ah malaynaa aan shalay hadalkiisa aan maqlay iyo wiilkan ay leeyihiin Mahad Salaad ay leeyihiin sabab noocee lagu wareejin karaa baddaasaytos oo maxaa la dhihi jiray berbera. war adiga bad baa loo dooday, adigana dadkaagii baad u doodi lacdahay. marka ummad maad mithili kartaa niman yahow. ilaahay amarkiis in been lisu sheego ma fiicna. aniga waxaan jeclahay ma dhowr jeer waan ka hadlay laakiin hadda waxaan u soo galay waxay tahay nimankaanayto lambarkayga hadday rabaanna waan u soo qorayaa ama lambarkaygaan u sheegayaa. ha ii soo galaan bal ha iga jawaabaan
waxa ay macnaha arintaanayto dadweynaha ay dadweynaha Soomaali Bantu ama Soomaalida samaha jecel ay macnaha kaga qancin karaan arintan ayada ah ayaan u baahnahay. maxaa ayaga u hadli la'yihiin ayagoo hadlayaan inta barlamaankan la sameeyay weligay kama aanan aragnin Soomaali Bantu ah intuu soo istaago barlamaankaas ra'yi ka dhiibanaya ma aanan arag. walaa Jubbaland gudaheeda ولا محل يجري هيرشبيله محل يجري وها بحالكي كلا محل يجري كونفور قلبت ورمدناكم معنا نرك وريا إذن كدتكي عدلين دد ما ميثشان رنتي مركي لو هذا إذن كوها إذن صوت دورتي حقامي كوهيد يدا قبل داس هيستا أيا إذن صوت دورتي أنا معمول متهاي مدحوين متهاي معمول قبلات يدا دتك هيستا أيا إذن صوت دورتي إذنك أيا بريس كود أكريسان runtii marka la idin sheego bariiskaasad u karisaan bariiskooda u bisleysaan magaciinu bariiska ku bislaada haday sidaas aan ahayn bal naga qanciya maanta naga qanciya niman yahow oo dad u doodo badda sayto berbera dad u doodo oo idinkana dadkiini aad u doodi waysaan oo dulmiga iyo rafaadka lagu hayo aad u doodi waysaan ya maxaa koos gareyno yaa way waxa koos gareynayo ayaan u baahnahay haddaad imaqlaysin kulay waad imaqloysin ya waxaan rabaa inaad iiga soo jawaabto haddaad numberkayga aad rabtaana numberkayga waxaa way 585-6942-94 aniga af ingiriisaas uma numberkayga waxaa haddaan xanaaq waxaa hadalka dhan waa 585-6942 466 585-6942 waay waa معناها فرها زيتو وفرها مقالة أو معناها رجستر نيويورك أي واي فرها مركب وحاوي أذا ريالو إن أبتيال يا وحن ماشي أتكو هيسان وحمة هي هدي كلام إسكجا تكتان مجا عم إسكجا هاللي نيسان مركب مدة كلا وحن لهذا نينكلا لي فرماجو أنا ورت رأيي كان كهدلها نينكي معناها أصدق سكلا إيه أركان أسجى يجرتا حسن على خير إيه فرماجو أنيجا قفكم محان إيه كرام مدحويني ما ديس أنا وان أهان وينا نينك فرماجو للي هاي لكن إمك أمهان ويني رنت واي مركان أهل أمهان ويني واي هدوسان أنيجا معناها دلمي جب إيجا قادينين دلمي عن أدورتي إنه إيجا قاد هداي هدوسان إيجا قادي كرينين دي أنيجا مدحويني مدي هاي waxba ma dhahayn madaxweyne ma tiina ma dhahay laakiin magac ugu yeeray waxay tahay farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo ninka la leeyahay iyo ninka la leeyahay xasan ali khayre war ummadaanayto idinka maanta mas'uuliyadeeda qaadeen war aakhira idinka la idin weydiina cid kale lama weydiinay waayo de ilaahay wuxuu yiri ninka maanta garsoorka ah ayaa naarta tan ugu xun asagan gelina ummadaanayto dadka dulminaya iyo ayaga idinka garsoor u ah idinka dhexdhexaadiye u ah idinka dhextaal u ah warniman yahow ilaah intaad ka cabsataan iyo amag jagada iskaga taga adiga haday Finland hadaad ka timid Finlandaada iska aad adigana kulay isku gobolaanahay waa ku soo dhaweynayna Buffalo iska imo farmaajo waayo de magiciina lagu qaraabanoya wax meesha aad ku haysaan ilaahay abuurteen ma jiraan dibta maanta dhacaysa anigii hadda idin la hadlayo aad idinka idin saaroya ilaahaygi idin abuurtayna aad saasu idin saara waayo hadii meesha adoon waxba ku hayn karin oo dadkaas aad xukumi karin hadaybo islayn jireene ha isleeyaan Soomaali abka awowka isdili jirtay ya magaciina yaan lagu qaraaban leeyaan isku dilin ha isdilaane iskaga soo dhaxbaxa ma ahan Soomahan hadii kale ana waxaan u garan karnaa inaad idinka baxaqlinta aad ku jirtaan waayo de masaakiinta waa la dhaca waa la dila waa la kufsada hantidooda la dhaca ya madaxweynaan ahay ra'iisul wasaaraan ahay waxaad u doodaysan badad u doodaysan dekadad u doodaysan warkii aad xukumaysiin hoostiina joogay oo 30 kilomitir afgooy idin jiray aa la dilooya kii kale sidoo kale balcad intaas idin jiray ayaa la dilooya war maxaa waxaad sheegaysaan oo aad madax ka tihiin oo wax aad leedin wax baan nahay wax baan xukunaa
وروح حكمتان إله أورتين مجران يا إلهي كعبسدا ماشي إسكاغا تاغا هداد رون ربطان إسكاغا تاغا ماشي إسكاغا تاغا فرماجة يحسن على خير ماشي إسكاغا تاغا ومدان هدول مننا دادك هو قبساننا دادك هو جلعننا يا بيرو هذي واي هاد واد بحذين إلا يو تركي أياد انت داد ودينا هشيس لسوا صحيحتين هل من سومالي بانتو هشيس كاس لسوا صحيح يكون مجرين وسومالي جلاعهم بي أهايين ورنين كان او كيمد محل ديجري او كيمد محل ديجري بوراهاس ددوم غغدود كاس كيمد بيرتا اسغا سو صحيحانay او تركي انكره تغay او هشيسكا سو صحيحانay او بيرتا اولey maxay tahay kan beerta iska lahaan oo heshiiska ka reebay waxaas dhan adaa u sabab farmaajo adaa maanta adiga xasan cali khayra idin saar idinka u sababa waayo de wafdi kasta Soomaaliya meel aaday nin Soomaali baantu lagu marko وفدنا إذن كادرة إذن كصحيحة سفارة سومالي بانتو أو مدح وما أركيسد قنصلية سومالي بانتو مدح وما أركيسد أنت صودن إذن كواي وحاد نقطين مؤجي وحصل سمينا مؤجي وحصل سمينا مدحوينا مؤجي وحصل سمينا رئيس الوزراء مؤجي وحصل سمينا وزير كمؤجي ور إذن كدولة دين مؤجي ميا يا دولة دين مؤجي لديه جرميا حسن علي خير يوم فرماجو مركز دولة دين وها حسن غرغورته بلاشا لو دي جيري إذنك وحال إذن ده موغي فرماجة موغي خير موغي ورمساكين تندل ميغي كدايا إله دل ميغي موغولي ورفرماجو أني وكل تلنا هداد بتهي أهل خير آتهي ورسومالي إسكاكا صوتك Soomaaliya iskaga soo tag wax baka ma qaban kartid Soomaaliya iskaga soo tag ha isdilaan ilaa xilligii Soomaali magac Soomaali la uuma ilaa ay hadda ay isdilayeen waayo dilkayba ayaga wax ku leeyihiin Soomaalida waayo de awow dhalay awowgiis shanaad awowgiis kalaaba yiri ya hal booli an nirig xalaal ma dhasho waayo de dawladan hadda adiga madax ka noqona aad leedahay barlamaankiiba boolinimo ay ku yimaadeen barlamaan booli ku yimid ayaad rabtaa miya inaad xalaal ka dhigtid war xalaal ma noqonayo dawlad xalaalna ma bakeeni karaan barlamaankan waayo de markoodii hore waxaa la yiri dadban maxaa la yiri barlamaanka dadban miyuu ahaa weligay allahe intaan noolaa aan dawlad soo arki jiray oo la dhahay waa barlamaan dadban miyaa ma ogi weligay ma maqal tanaan ka maqlay tan marka wax la yiri asaga dadban adba adiga hadaad rabto inaad toosis ma toosin karto haddaba aniga kulli waan ka baxayaa wixii ra'yi ah ayaan aruursanayaa iyo waxaan rabaa dadka macnaha oo la leeyahay Soomaali baantu bay wax u yihiin oo maxal dhigi jiray kulli hatta dalxa waan u baahnaa haduusan ka bixin Soomaali baantu laakiin waxaan u maleynaa dalxa sida oo koonfur galbeed loo magacaabay oo xagga uu ka soo galay inuu ka baxan u maleynaa magaca Soomaali baantu inuu ka baxan u maleynaa way haduusan ka bixin amma arag ba mardho asagoo Soomaali baantu u dooday xilligii arbo ay ishayeen ayaan maqli jiray asagoo Soomaali baantu oo maanta oo u doodayo oo jaga raadsanaya laakiin si hadda marka oo uu noqday koonfur galbeed uu noqdayna magaca Soomaali baantu asagoo soo qaaday ma maqal haduu ninka walaalkay arbo maxal dhigi jiray kan kale maxal dhigi jiray الله نمك عيسى دي الليل ماما نين خير قبا معه ما إيشاكتان دلحة هادو بيهي نين سومالي بانتو قالت الرم أو يهي والله ودقن لها لكن داد بد مركز تمركي أني أريغا عن سوق هذا حالي نين كاسيتو مهد لي كارو أساقا بحينيها الله يستابع ما أهان سومالي بانتو هدو أهانا inan ba ku degan ba la sheego inan ba xiniyaha ugu degan ma hadli karo nasiibkiisu qaba haduu tolkiisa ba inan dartiisa oo hadli waayana de asagay jirtaa dalxow waad hadli kartaa ilaahay amarkiisa ilaahna waa ku cadaabi doonaa waa ilaahay dartiisa u hadal
ummaddaanayto barofesor kaamila tahay nin barofesor ahaan jiray reer jowhartaas ka mid ahaa eenow waa hadli jiray ilaahay amarkiisa ilaahay baa tiisa u timid oo ilaah baa ka hor yimid marka kii kalena wuxuu ahaa arbow oo aad adiga dabada haysan jirtay arbow dabadaad haysan jirtay meel uu kaa maru waayay dabadaasaa ugu dheganeed arbow markuu arbow geeriyoodayna ya nin yahow waxaad noqotay qolo kalaad isku beddeshay dalxa laakiin markii arbow noolaa waa ku tirsanayni waayo dhacdii arbow aaba is haysateenba laakiin arbow markuu geeriyooday waxaad noqotay qolo kalaad noqotay qoladaadana ilaaha kuu barakeeyo soomaali weyn inta samaha jecel soomaali baantuu inta waxgaradka ah ilaahay markiisa aqliga ilaah xaggiisa saliim kaga dhigay waxaan u baahnahay maxaa su-aashayda waxay tahay war niman yahow nimankaanayto annaga lana mithilaan la sheegayo oo la leeyahay oo barlamaanka gobollada hirshabeelle gobolka koonfur galbeed gobolka jubbaland la sheegayo ay ka soo galaan markay fasaxa ka yimaadaan maxay micnaha usugu soo bandhigi la'yihiin barlamaanka waxyaalaha ay ku soo arkeen gobolladooda dhibta iyo rafaadka dheefta iyo nimcada ay uga warbixin la'yihiin barlamaanka haddii macnaha dhib ay soo arkeen ay u dhihi la'yihiin dadkayna dhibaatadaasa haystaan oo dhibaatadaa waxa loogu qabto maxay u dhihi la'yihiin kow maxaan dhihi lahaa kan leeyahay farmaajo ninka la leeyahay farmaajo iyo xasan cali khayre haddii oo kuwaan ay hadli waayeen ilaan ummaddan guud ahaan ayagaa madax ka ahee ilaan ayagaa xukumaanee dhibtooda maxay u arki waayeen dhibtooda maxay uga hadli waayeen ya ilaan aakhira waa loo cadaabayaaye maxaa ummaddan dhibtooda ay u arki la'yihiin xasan cali khayre iyo maxaa la dhihi war waxay ku leeyihin maxaabiistaa laga soo fursaday hindiya war maxaabiista hindiya laga soo fursaday kuwa tuuga markoodii ahaayeen burcadbadeeday ahaayeen war masaakiinkan dulman oo maanta dhibna geysanin la rafaadsanayo hadday wax fursanayaan may kuwaan fursadaan annagay noogu sheekeynayaan siishalisa wax laga soo furay hindiya wax laga soo furay kana wax laga soo furay war kuwaan shabeellaha hoose iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo hiiraantan ku dhiban hadday wax tarayaan may wax u qabtaan dalka gudihiisaaba lagu baaba'sana dibaddiisa maxay ka raadinayaan ya maxay ka raadinayaan dad oo dowlad dhistay oo yidhi annaga dowladdiina kama tirsanin hadday dakadoodii waxoodii ay dad siisteen ay hungurigooda ay fahmi waayeen dadkoodii waxooda ay fahmi waayeen waxay ku leeyihin somalilandna dekad iibisay somalilandna kan ah somalilandna kan ah war somalilandna dad baaba la iibsanoyaaba adiga somalilandna sheegaysaaye dad baa xoolahoodii ayaga la iibsanoya war xoolo la iibsaday xoolo ma warya ninkii beertiisa laga qaatay oo laga iibsaday ya adiga waxaad leedahay wax shirkad dadweyne ayaad u qaylinaysaa ninka masaakiinka aad madaxda ka tahay ya ayaa xoolihiisa la iibsaday aad waxba u qaban waysay oo xoolihiisa xoog looga iibsaday xoogna loogu qaatay markaasaad leedahay somalilandna kan ah somalilandna kan ah somalilandna war somaliland ya maxaa soomaali hadda meeqa wasiiraad siisay xasan cali khayrow somaliland oo dadka macnaha ka soo horjeeda mucaaradka somaliland oo jooga xamar meeqa wasiiraad siisay kii maanta canshuurta bixinayay oo maanta oo beerihiisii aad xoogteen oo xoolihiisi aad haysataan guryihiisi aad haysataan ya maxaad siiseen maxaad wasiir siiseen adiga khaasatan xasan cali khayrow maxaad wasiir siisay soomaali baantu maxaad siisay somalilandna imisaad siisay oo waddankooda aan la hayninba oo ay ku leeyihin annaga dowlad gaaran nahay imisa wasiiraad siisay soomaali baantuna imisaad siisay war yaa hooy ilaahay ka cabsada ilaaha kama cabsataane ilaaha ka cabsada ya ilaahay ka cabsada ilaahay sida ya war sidaan soomaalinima ma ahan ilaaha laga cabsado soomaalinima ma ahan
okay marka aniga meeshaanayto dadna ma aynayo dadna ma ammaanayo waxa aan haystana Soomaalida kale ma haysto waxaan haystaa xildhibaanadeydii iyo ra'iisul wasaarahaygii iyo madaxweynahaygii ya waa hadduu ogol yahay madaxweynenimadii aan u doortay waa hadduu ogol yahay goormuu ogolaana waay markii anay wax uu ii qabto xaqayga uu i siiyo hadduusan xaqayga i siinin aniga madaxweyne uma haysto mana u aqoonsanin madaxweyne dadkiisa ha u aqoonsanaadaan weligoodba ilaan dulmiga dad baaba jiraaba dadka dulmiga ku naaxiya oo runta u sheegin haddaad dulmiga ku naaxinaysiin maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan ali khayre weligiina ku naaxiya dulmiga laakiin aniga kuma naaxinay waayo aniga waxba igama qaadayaan aniga waxba igama qaadayaan ilaahun baa wax iga qaadi kara idinkoo u naageeyana waxba igama qaadi kara aniga weligiinba u naageeya alxamdulilah rabbilcaalamiin aniga maraykanaan jooga ya waa iska nabdoonahay ma shaqeeyo waxaan ahay weli beeshinaan ahay ilaah baa wax isiya dowladda Soomaaliyeed ayada dad Soomaaliyeed baa jugtan isoo gaarsiiyay laakiin dad gaal ah ayaa maanta ii naxariisanooya oo wax kasta ayaga isiinooya ayaga ii samafalooyin marka aniga Soomaali xaggeeda saasan ba ka ahay dib baa iga soo gaari ma faa'iido igama soo gaarin haddana wixii jiray aniga dadkayga baa dhibaato lagu hayaa maahe wax faa'iido kama filanooy insha Allah biidnillaahi kariim haddana kan aamusan habartii hawaso kan aamusan oo dantiisa garanaynin oo xishmad kaliya u aamusan oo xishmadna loo haynin ya habartii hawaso laakiin aniga weligeyna saanan aha maraykan aan joogo saanan ahana intaan cimrigeyga ka dhiman haddaan Soomaaliya aan imaadana sidaan baan ahaana wallahi weligey had ninka yaqaana Soomaaliya markaan joogana saan baan u hadli jiray seef la booda li dhihi jiray xaaji seefa li dhihi jiray nin aan ka baqi jirin ma jirin nin aan ka baqi jirin ilaahay abuurtay ma jirin haddana Soomaaliya haddaan imaadana sidoo kale dadna kama baqay markaan aniga Soomaaliya ka soo baxayn fulaynima uma soo bixin ani ilmahaygan soo raadsaday oo waqooyi joogeen sidii haddana aan ku soo baxay dhibtii iyo rafaadkii maadaama aan shaqaysan sidii aan ku soo baxay shaqo la'aan iyo rafaad Hargeysa igu qabatay maahay aniga nin fulaynima maanta dibadda u yimid aniga ma ihi horta taas waa warbixintayda yar oo keliya laakiin waxaan idin leeyahay waryaa hooy hadda maxaa la leeyahay hadda waxaan maqlooyaa waxaa la soo weeraray wurkooy ilaa iyo baarka sanguuni intaan waryaa hooy haddii caqli isyeeli waysaan dhiigna isyeeli waysaan war dadkiina meesha jooga wallaahi billaahi tallaahi gumaysigiisa ka weyn umbaad gelaysaan gumaysigiisa war kuwa meesha u dhimanooyin ama ay leeyin waa u dhimanayna sanwaweyntaas Kenya ka yimaadeen sanwaweyntaasay aad arkaysaan Kenyaatiga la leeyahay Kenyaati maha waa ogaadeen ana runtii idin siina qolada sanka waa weyn leh oo meesha yimid oo maanta oo Uhuru Kenyatta soo diray la leeyahay oo daday difaacayaan la leeyahay wallaahi billahi jareer ma difaacoyin Soomaaliya difaacoyin Soomaaliya difaacoyin marka wallahi kullayba idin taala marka nin baa isoo qaba le koowde ninkaanan qabana wuxuu sheegi doonaan arki doonay
marka wallahi kolley baarintu waa sidaas alxamdulilah rabbilcaalamiin wow cabdullaahi axmed waa salaamanta adeer waa salaamanta beryaha maba ku arkine cabdullaahi ow beryahan kuma arag adeer out of area like out of area okay fuaado adigi soo qaw waa diidan yahay kowde waa kugu soo daalay adeer waa fuaad ismaan cali aan kugu soo daalay adeer hadda saan xaggaagu soo jira haddaad qabsan karta qabo marka alxamdulilah rabbilcaalamiin annaga marka waxaa waaye marka waxaa waaye insha allah biidni illaahi kariim ها ايه نودي وفي عناي ناكتا جمعة ولا مدين ها جمعة وين ها جمعة وين الحمد لله الحمد لله واي ايوه هاي ان شاء الله marka intaa iga raali ahaada marka alxamdulilah rabbilcaalamiin kool yaraan galay marka soo qorta waa idin soo qabanayaa ninka qabasho rabo oo arrintaas jawaabba ka bixin karo xildhibaan ha noqdo oo saddexdaas gobolka saddexda oo maxaa la dhihi jiray maamul goboleedyada ka tirsan ana dhihi maayo dowlad ma dhahayo saddexdaas maamul goboleed hirshabeelle maxaa la dhihi jiray koonfur galbeed iyo jubbaland maamuladaasayto soomaali baantuuda ka tirsan iyo soomaalida samaha jecel oo masaakiintanba u danqan kara soo qorta waa idin soo qabanaya waayo dhe annaga dhibaatan qabna madaxweyne noo doodaya male ra'iisul wasaare noo doodaya male maxaa la dhihi jiray kan kale xildhibaan noo doodaya male xildhibaaniintu waxay noqdeen xildhibaano u shaqeeya maamul goboleedyada ilaan haddaayba waxaa waaye dowlad dadban ay ka yimaadeen maamul dadban miyaamoog ay ka yimaadeen dee maamulkii dadbanaa wax uusan ogoleen hadday sameeyaan waa lagu soo horjeesanaa umalayna goboleedka ma tegi karaan laakiinse waxaa waaye dowladda waxaa doortay dadweyne oo dhanaa doortay madaxweynaha dadweynaha dhanaa doorteen
رئيس الوزراء أنا ددوينها أنا دورتي مرة دي مدحويني ددوينها كان دورتي رئيس الوزراء أنا سيدو كلا إلى مدحوينها يا وكيشتي أوكي مركا مركا وأكون راضي عبد ألف وحير يسوق أدير مركا الحمد لله رب العالمين مركا الحمد لله رب العالمين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ورير مقدشو رير مقدشو إله ما تكعب ستان ما إسكا هذا الشان ما إسكا هذا الشان رير مقدشو أودن ما إنتينا سماها جعل ما إسكا هذا الشان يا ما إسكا هذا الشان حسن خيري حسن خيري يا محل ديه جري حسن خيري يا محل ديه جري محمد فرماجو ما رنت وشيكتان يا مساكين تان يا مساكين تان دلميغا ما لقد دايو إلا أن دلم إلهي مفالنين دلم إلهي مفالنين إلهي دلم مفالنين إلهي دلم مفالنين إلهي دلم مفالنين آوي نمانكي لديه جري محل ديه جري آوي نمانكي لديه جري مدني مقرن ور مدني مقرن آوي شير لايك ندها ور مدني مقرن آوي مدني مقرن عليرو واد سلام انت يا دير مدني مقرن مدني مقرن مدني مقرن
Soomaali baantuu kama mid ah kama kuma jirta miya midnimada qaranka Soomaalida ya waad jeceshiin marka macnaha xifaaltan qabiil iyo jini iyo waad ku soo buuxsamaysaan macnaha maxaa la dhihi jiray facebookyada ya qabiile blowsanway qabiile blowsanway qabiile blowsanway futa inta way kan sanway hooyadiina qabiilka ka wasa qabiilka maxaad ku heshaan horta sidiinaba ya qabiil maxaad ku heshaan qabiilka hadda haddaan qabiil dhex galo ya kulligii waad ku soo buuxsamaysaan meesha laakiin marka runta lisu sheegayo waxaa waay ma danaysaan aniga hadda haddiin aan micnaha faalin lahaa dowladdaanayto xasan cali khayre iyo farmaajo meesha waad ku soo buuxsami lahaydeen de aniga hadda dowladna macayno ilaan dowladdan run u sheegaya dowladda la sheegay ayaan runta u sheegaya ya marka haddii runta laysu yimaadana waa khadka waa ka maqnaanaysaan laakiin marka dowladda oo la sheegay dowladdaasane dowladdaa kana dowladdaana waxtarkan samaynaysa war dowladda inta waa meeshoo dhan 2,000 1,500 1,000 ayaad maraysiin ama gabar masaakiina la caynoya oo gabar oo maanta cawro ah gabar Soomaaliyeed ah ayaa la caynoya Facebook waad ku soo buuxsamaysaan ya maxaad ka helaysaan gabar masaakiin oo la caynayo maxaad ka helaysaan ya nin oo maanta masaakiin iska ah oon dad haysanin oo qabiil la caynayo maxaad ka helaysaan ya laakiin marka runta la rabo ya macnaha walaalkaaga wasiira wal ina abtigaada wasiira ina abtidaada adeer wasiira ina saana wasiira marka ma hadli kartid waxba kama sheegi kartid waayo dheh raashinka dulmiga ah ayaadba qayb ka cuntaaba ya raashinka dulmiga ah ayaad wax ka cuntaan ya laakiinse runta ma rabtaan Soomaali runta ma rabtaan waayo dheh runta ma bajeclaan kartiinba والله بالله تالله dadkii aad ku sheegaysiin waqtiga jaahiliga oo sidaasu war waqti jaahili ma ahayn waqtigii sayid maxamed cabdulla hasan iyo waqtigii ka horeeyay iyo waqtigii nasiib buunda iyo waqtigii macnaha awgeedo iyo aw jahiima iyo aw jaberbero iyo ya haawataako iyo de waqtigaas waqti uu ahaa Soomaalinimaa jirtay ya Soomaalinima ayaa jirtay hadda Soomaalinima ma jirto hadda beelaa jirta beel ma ahata qoys waayo dhe xilligaasayta runtaa lisu sheegi jiray ninka xun runtaa loo sheegi jiray ninka sunna samaantiisa waa la sheegi jiray waayo dhe aniga ninkaas haddaba ma hayo ya laakiinse waxaa la yidhi ninkii yidhi nin Soomaali unbuu ahaa hal booli aan yidhi xalaal ma dhasho ninkii yidhi nin Soomaali buu ahaa muxuu yidhi waayo dhe wuxuu ogaaday Soomaalida macnaha waxay ahayd waxa ugu muhiimsan oo markaasayta isticmaali jireen xoolaha ama lacagta ay lahaayeen waxay ahaan jirtay oo keliya waxa la yiraahdo maxaa la dhihi jiray geela marka geela la soo dhaco cunuga ama nirta leeyahay anaga cunugan dhahnaa de xalaal ma noqonayso maxamed caafiye السلام عليكم. عليكم السلام soo dhawaaw adeerka yor nabad adeer waa fiican alxamdulillah khayr waaye maxaa laga hadlaa maanta caaw wallahi maanta adiga laba arrin ku dhex jirta way koowde marka midda koowaad waxaa waaye nimankaanito alla leeyahay macnaha waxaa laga soo noqday marka hore fasixii golihii baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa laga soo noqday goleyba
saanu ognahayna fasax marka laga soo noqonayo waxaa laga yimaadaa nin walba meeshii laga soo doortay asagoo micnaha soo indhaynaya dhibta iyo dheefta iyo waxa jira oo kadibna markuu barlamaanka yimaado si uu meeshaasayta ugu soo bandhigo marka fasaxii baa laga yimid marka qolooyinkan la leeyahay Soomaali qowmiyadan Soomaali Bantu saddexda gobol Hirshabeelle iyo maxaa la dhihi jiray gobolkaanayto la yiraahdo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland xildhibaanada ugu jiray maamul goboleedyadaas markay yimaadeen ilaa iyo hadda wax macnaha dhibta meesha ka jirta ay meesha ay wax ka sheegeen ilaahay abuurtay ma jiraan way okay waxaan arkaynay dad oo wali ka hadlaya danqasho Soomaalinimo ay ka tahay iyo waxay ka ahaataba ay ka hadlayaan oo leeyihiin maxaa loo iibinaa badda Soomaaliya maxaa loo iibinaa dekada Soomaaliya oo berbera dadna dhibaatadii dadkiisa haystay ayuu ka hadli la'yahayba waayay dadkaas hadday hadli waayeen dadkan ilaa mas'uulo sare ayaa jira madaxweynaha jira la sheegoyaa ani waa jira run ay ma dhihi kara ra'iisul wasaaraha jira la sheegoyaa warka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaas la sheegayso masaakiinta madax soo kama aan ayaga si fiican waayay kuwan dhibaatada haysataa waan ognahay kuwan dhibaatada haysataa fresh baa dul saaran ilaan hadayba maamul goboleedyada waxaa jooga qolo la yiraahdo hogaamiye kooxeedyaal ayaga soo doorteen kuwiya laga yaabo inay ka baqayaan laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dadkan masaakiinta may u doodaan ayay ka baqooyin wallahi horta waxa waaye walaalkaa oo dhibaataysan qof kale inaa u doodo waa laga fiicnaa Soomaa عادي walaalkaa dhibaataysan ina dhibkiisa aad ku fiiriso qof kale aad u cawaado taas waa laga fiican waxa waaye aliga sheego iyo wax walaxa qabana iyo caalamka liiga maqlo moogti qofka marka ugu horeyso waxa la rabaa gurigiisa sax macnaha hadalka dhawaaqadiisa iyo ulajeedkiisa waxa waaye status waaye macnaha qofku waxaa looga baahan yahay qofkiisa dhibaatada oo ku jiro inuu ka xanuunsado qofka kale muslimka macnaha dhibaatada ku jiro ka xanuunsado hiiraankiisa jaarkiisa walaalkiisa inuu ka xanuunsado la rabaa kadibna dadka kale oo u doodo adiga aqoqdo u soo dhiciyana sax waay laakiin mid hadda meeshan taagan tahay qofka walaalkiisa dhibaatada uu ku fiirsanayaa wadamo kale u tagaa dadka oo dhibaataysan wax u qabanaa waxay tahay taas macnaha aliga sheego iyo waxa waaye ninkan waxa buu qabanaya dadka ku arkaan waa mugti waa sax marka niyo waxa waaye qof kasta ay mid ninkiisa marsaar sameen maalna ninkiisa ka naxayo waa run marka hadalkaas waxa ula jeedaa qoomiyada jareer weyne ay ka in isbahaystaan oo wax isku qabtaan laakiin haday adiga hebela madax aad ku taageersan tahay ama een walax ku qabo doona aad ku taageersan tahay horumar gaarimaysid sax waay marka anaga saa u nahay qoomiyada jareer weyne waxyaalo jiro iyo dhibaato fara badan oo nagu lahayo Soomaa caadi marka waxaa la rabaa madaxda qoomiyada jareer weyne inay ka wada hadlaan si hoos ugu wada hadlaan oo adiga fishil iyo waxa ma la rabo moogtahay been abuur iyo waxaas laga marabo sax waay si hoos inay qoomiyada isla hadlaan madaxda si hoos inay u shiraano adiga wax isku sheegaan loo baahan yahay kadibna qofka walaalka wax loo qabto marka qofka walaalka wax u qabato kadib dadka kale waa si gaarsiin karta Soomaa horta marka oores waxa la rabaa adiga gurigaad inaad dhisato kadib waa qofka guri u dhisi kartaa saxwiyo hadalka ku sii dheeranayo waxa waaye qof kasta fikradiisa saliimka inuu dhiibto fiican tahay Soomaa saxwiyo ugu dambeyn hadalkii waxa ku soo gabagabeynaa qoomiyada jareer weyne inay wada tashi ay sameeyaan madaxdooda si hoos inay wada tashtaan kadibna dadka masaakiinta oo cid ka tirsan wax u qabtaan wixii dheeraad ah oo soo baxna waa kaas gacan siiyaan
waayahay ka waran bal ka waran ninkan oo madaxweynaha lagu sheegayo iyo kan ra'iisul wasaaraha lagu sheegayo oo ummaddan ayaga mas-uulka ka yihiin hadday micnaha xildhibaanadan oo saddexda maamul goboleed joogaan oo ay cabsanoyiin ayaga markastoo lagama rabo in ay ummaddaanayto ay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare u sheeganayiin in ay ayaga u doodaan adiga haddii cunugii aad ilmahaaga ilaan isku mid maaha midna wuxuu ku leeyahay aabbo gaaja i haysa ama hooyo gaaja i haysa midna maba hadlaba kan gaaja i haysa uu leeyahay asaga macnaha asaga afkiisa furtayo wixii uu rabay waad siinaysaa laakiin kan kale hooyada waxaa la rabaa ama aabbaha waxaa la rabaa cunugiisa baahan ama cunugiisa dhiba ooman inuu asaga garto maxay u garan la'yihiin farmaajo iyo xasan cali khayre nimankan ayaga madaxnimada ay madaxda leeyihiin ayaan u nahay oo masaakimiinta ah ay u garan la'yihiin kuwa oo dalka jooga ay u garan la'yihiin dhibtooda kuwa macnaha Seychelles ku xiran kuwa ku xiran Hindiya ku xiran kuwa macnaha Liibiya ku xiran ay u arkooyin kuwan dalka gudihiisa joogaan ay u arki la'yihiin taas waxa waaye ina laga hadlo u baahan waaye oo madaxda qoomiyadda jareer weyne inay wada tashtaan oo taas laga wada hadlo u baahan waayo qof dhibaataysan oo hoostaada joogo inaad ka korboodo oo qof kale meel wadanka ku dhibaataysan u tagto taas waa laga fiican Soomaa aad iyo aad marka waxa waaye waxa la qof oo joogaada u jeedo jiifkaada ma loogu daro mugto صح وين markaniyo horta waxa waa arintan in badan ay socotaa waa la iska daba jijiitmay haday dadkan wax fahmayaan ama hadal oo galay ama waana ay maqlayaan haye waxa loo baahan yahay in si hoos ee wada hadal loo sameeyo kadibna arintan laga wada hadlaa waa loo baahan yahay taasna waxay khusaysaa madaxda jareer weyne والله أنا كل يباني وحاول جرير وين ما ده ما قوميتان جرير وين هذا إني مدح لهذا يعني ما بقوها يستبع وايو مدح وين دلك هي أدى وقص رئيس الشيء وحلبان هذا هدي هي أدي وقص رئيس وحلبان هذا أهيد وحلبان ذي بقوميت أي واحد قبل لا هذا هي محاول مدح ذا إلى هانكرتو ومدن قوميتان جرير وينه فيري horta qofka bini'aadamka asiga kadigu yahay moogta maanta hadaad iska dhigto qof sareeyo oo adiga laga dambeeya hadaad iska dhigto qofkii sareeyaa tahay hadaad iska dhigto qof hooseeyo waxaa tahay qofkii hooseeyey sax waay marka qofku waxa laga baahan yahay asiga inuu ficil sameeyo oo adigana wanaagana asiga dadka u faro oo wax qabad sameeyo al rabaa kadib waa laga dambeena sax waay marka waxa cidda ayka isliiday dhulka isla dhigay waxa loo baahan yahay inay dhulka iska qaadaan oo wax qabadkooda ay muujiyaan oo adiga هاي هلو الو
عامر مرعد واكو سلامي أدير موية أبا نور أدنا واكو سلامي والله بالله كل بارنش تانيتو وأرين مرقسن وايه أرين مرقسن وايه أرين مانتو أباهن أرين مانتو أباهن حال دي جري عبد الرحمن أحمد محمد أدنا واكو سلامي أدو أبوبي marka arinta waxaa waaye arin murugsan waaye insha allah biidnillaahi kariim wallaahi kolley basi unbay noqonaysaa arrintan in badan aan kusoo celcelinay nin waxaa la yidhi oo maanta oo hooyadaa rabo walaahi sheegoo kaama yeelayo حبيبي محمود النوى السلام انتهي مركا إن شاء الله بإذن الله كريم مركاسيون بين قونيسا أي نمول برأيجيس وكتيبان كرا ور حلبانا دي سومالي بانتو حلبانا دي سومالي بانتو حلبانا دي سومالي بانتو أيان أباهن نهي إن أرنكان أي نغا شافيان in arrinkan ay naga shaafiyaan dhibaatada ay kusoo arkeen ama ay kusoo arkeen gobollada macnaha waxa ka mid ah ama waxa ay u gudbiyeen baarlamaanka iyo ummadda ay mas-uulka ka yihiin waxa ay ka filanayaan meeshaasayto dhib baa jira abaaraa jirta biyo xumiyaa jira dagaalaa jira barakac baa jira marka intaasoo dhan in laga hadla ay rabtaa waxaa jooga hadda fiiri ka soo qaad barakacan la leeyahay yaa dhaliyey waaye waana loogu qaraabtaa dad baa dhaliya oo maanta qoomiyadda baantuuda meesha degaysay haysta oo ka soo barakicinayo oo maanta la rabay inay ka hadlaan kama hadlayaan nin walba muufadiisuu bislaysanayaa warnimayow sidaan ma aakhira ilaah uu idin cadaabi doonaa dadkiina u hadla war dadkiina u jirnaha dadkiina u hadla oo dadkiina u jirnaha kii qabasho raba ha soo qorto waan soo qabanayaa tala baan rabaani in tala lii siiyo ama tala la siiyo ama dadkaanayto tala iyo tusaale la siiyo ummaddan bal idda rabto in la soo qabto soo qorta waa la idin soo qabanayaa ninka maanta waa la idin soo qabanayaa soo qorta waa la idin soo qabanayaa ninka soo qabasho rabo soo qoro waa lagu soo qabanayaa soo qorta ninka Umar Sheekh Nuur yaa raba inuu tala dhiibta la soo qabanayaa yaa raba in la soo qabto yaa raba in la soo qabto yaa la soo qabanaya haye soo gala idda la rabto in la soo qabto diyaaran u hay waan soo qabanayaa maxaad la aamusantihiin ma afkii baa juuqda gabay
عمر شيخ نور محمد عبد واحد ياسين وسلامتين كل جينا يا سوق قبطة يا سوق قبطة يا وراوي اللبانة دي سومالي بانتو آوي اللبانة دي سومالي بانتو آوي وحقرت كسومالي بانتو أو ودن كجوغي آوي محاضو هاد لله ذهين هادلا مسواد عبسنو يسين فليني ما إذن هيسميها يا فليني مو فلي حاروين يال ما اسك هذا يشان إله با إذن دلي كره يا واي والله شيء خديجة وكم مغلي كودة وحان ربي عد أهان إنا دد كان وح وشيك تدان ربي حدي ربتنا سوقرو إسوق بدي أدير وكو سوق بنا يا عد أهان وح وشيك عد أهان وح وشيك وذا أرورسن Ebo Mahadam وايا أبير وايا شقد هذا اسكوضوا
su'aashii qurba laba sokeeya xanibaho walaala laysku soo diraya ilaba safloogoe saciid aadan muuse brofesore waxaan rabaa taladaadan u baanahay waa ku sugaya adeer sanadii dhammaatee soqashadu la dagay sori waanu ka xunahay siliciyo dhibtiinaba sintii way dhammaatee sawaariiqda naga gada sahal loo yiraahda waa sidaa ujeedadu waa sideedadu afrikay sidaadaba shacbaan xoolo leenahay la yiraahdo saxarkiis sumadiisu midab tahay 48 aas naciimo taale simani ay ku yaalaan caanuhu ay soo sumayaan ninaan raba inaan soo qabto السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. توبي في عنا كان لي سيدنا ما وسلام يا أصحابتي كقيب قشي يكون صوص عضبه يا ذي وقاسك ويا ذي والسلام تاني. الحمد لله رب العالمين. وحاوي ما دام أنجو عاصمة دولك الصومالية مقالة المقدشو إن بدنا حقيقة أيان كور قبا أو ضدكي إنان قرباء جو هذا كور قبنا. قارتي. horta labada nin oo mas'uuliyadda maanta hayso oo ninka la yiraahdo Qayre iyo Farmaajo umaleyn maayo Soomaalidiina qurbaa waxa ka aaminsantiin inaysan u dhaweyn xataa ahaansho iska wadaaf gartay waa laba nin horta soo shaqo tagtay waxaan maqli jiray daahiriyaal iyo madaxda Soomaaliland waxay yiraahdaan iyo Faysal Waraabiyo waxa jiro rag isaaq oo Soomaaliland oo jooga Soomaaliya oo dawladda ka tirsan waxay dhigi jireen waa dad shaqo tagay marka labada nin Europe iyo waxa nooga soo shaqo tageen iyo America Buffalo iyo Buffalo aska tagay Farmaajo gobolka aan joogo magaalo ii dhow saacad iyo bar ii jirto Buffalo la yiraahdo halkaas oo ka soo shaqo tagay
danta dalka iyo dadka uu la baxay calaamatu munaafiqiin aanu ku aragnay calaamatu munaafiqiin waxaa ka mid a qofka ballanta u qaada aan oofin gartay dadka dulman iyo masaakiinta aan u danaynaya uu yidhi maantana wuxuu dilaa dadka dulman iyo masaakiinta gartay shalay waxaa naga xirnayd magaalada muqdisho inta qaybihii ugu muhiimsanaayo muhiimadda dhishiikiyaala ku xirnaay dadkii shacabka waa lugeynayeen qorraxda aad bay u kulushaa maarsa lagu jiray wasaaradda gaashadhigoo isaga xirnaay gartay marka waa dee shacabka muqdisho waxaad moodaa dee shacab ilaahay subxaana watacaala cuqubo horey badan ooga galay oo tii laga jarayo gartay horta geesi dhalaa tahay waan ku tahniyeynayaa wiilkayo walaalkayo waayo dhee nin oo maanta muqdisho jooga oo saan runta uga hadla oo adiga aan ka ahayn wallaahi inuusan isoo marin jilee ha noqdo jareer ha noqdo wax alla wuxuu rabo ha ahaado nin runta ka hadla oo maanta magaalada muqdisho joog adaan kaa arkay waayo ilaah unbaa ku cadaabi kara ilaah unbaa naxariis ku siin kara qofku wuxuu yahay haddaad ku sheegtid ilaah cadaab ka heli maysid wax la yidhaahdo khayr maahe cadaab haggiisa ka heli maysid wixii aad og tahay runta annaga dibadaha aan joogno runta noo sheeg adeer horta aad baa u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinayaa livekan oo aad ugu way maqashaa malaynayaa gartay xaqiiqada jirta haddaan inta ka hadlo runtii markii aan hadda aan waagii hore waxaan aniga ah oo ay ka mid yihiin beelweynta hadda oo midkii samo ama jareerweyne inay aad u dulman yihiin laakiin hadda waxaanba ogahay dadkii kaleeto oo dadka dulmi jiraaba hadda dulmanbo dulmiyaaba dulmanba la yeela iyo yeela ee aan jirtay haye hadda waxaan deganahay aagan oo suuqa xoolaha hal mar isku dhacday intaan qadka ku jiray ma maqlayso xabada ma maqlay horta ha qorra hal maraan maqlay meeshaana xoogaa la isku jicin codka xoogaa waa yar jijiid mooya maxaa dhaa codkaaga xoogaa waa yar jijiid miyaya nadweega xaggeena waaye marka hadda okay miyahay hadda okay waxa waaye niyow walaalow gacaliya meeshan waxa waaye dulmiya ka socdo dulmi weyn oo qoomamkii naga horreeyey ilaahay subxaana watacaala uu ku halaagay ayaa annaga maadaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga ballan qaaday in aan qoomkeenna aanan biyo iyo dhagax iyo midna lagu halaagin laakiin gacmahooda lagu halaago marka halaagiyaa socdo ma ogiye waxyaabo badan dunuub badan aan galnay waxyaabo badan oo ilaahay ka cadhaysiyaan subax kastoo la kalahnaa habeenkiina la soo oyanaa marka waxa waaye qofka hadda for example waxaa laga shirayay hiirshabeelle haddaan kasoo qaato for example hiirshabeelle waxaa laga shirayay biyo xidheenka jowhara laga shirayay gartay ragga ugu beeraha badan ugu wax soo saarka badan ugu dhaqaalaha badan meesha oo xoogsatada ka ahay waa shiidle gartay hal nin oogama jirin hal nin oo heshiiska wax ka saxiixay male igu soo celi heshiiskaas igu soo celi heshiiska waxaa la saxiixayay biyo xidheenka oo jowhar oo isnaay biyaaso ilaa jowhar biyo xidheenkii la heshiis la galayay turkiga laga soo saxiixanayay dhaqaalo badanaa lagu bixinayay dhaqaalo badanaa lagu qaadanayay hal nin oo shiidlaana kuma jiro gartay aniga markaa saas ku leeyahay beelaha hadda oo
xamar dadka yidhaahda annaga ugu tunka weynaan ka mid ahay gartay waxaana ogahay tunweynideenna dulmi inaan ay tahay aan ummadda ku hayno laakiin dulmigiiba hadda laba nin oo dibadda kasoo shaqo tagtaa waa annaga dulmi noogu timid gartay jowhar biyo mareenka jowhar oo biyo xidheenkiisa oo laga heshiiska la saxiixanayo oo hal nin oo shiidlaha ka maqan yahay waxa waaye macnaheeda hal xaaraan rig xalaala ma dhasho gartay markii adiga 300 ama 400 oo kun oo dollar lagu soo qiyaaso lagu sameeynayo waxa lagu sameeynayaa wax ka yar 30 kun 40 kun oo dollar cagaf la siinayaa xoogaa waxa waxaynaysaa biri webiga biyo Kenya hadda webiga wuxuu soo marayaa Bulubirde waa biyaha Ethiopia waa biyo Kenya Beledweyne waa biyo Kenya Bulubirde oo xalay yimid Jowhar uu ku soo socdaa gartay lacagtii waa la cunay cagaftii waa imaana biyo imaanayo inta yartada cagafta foortaa faxaasbayo qandaraaski waa halaabay rag xun baa la siiyay hadda Turkiga hadda loo tuugsi tagaa gartay 8 ilaa 10 inta u dhaxayso oo wadamo oo shisheeya ciidamo ka joogan hal mid oo dawladka amar qaata ma leh gartay nimanka lagu leeyahay imaaraadka hadda annaga baarlamaanka dhamaay oo Soomaaliya oo madaxda dhan oo Soomaaliya mas'uuliyadeeda ka saarnay oo nin kastaba gobolkiisa laga soo doortay meeshii oo abaar iyo dhibaato iyo duruuf iyo dhaqaale iyo ay ka hadli lahaayeen ma jirto maalin kasta Kenya waxay duqaysaa beerihii oo midkii oo mushungiliga duqaysaa dadkii masaakiinta mushungiliga iyo dadkii beer dhaqatada la wacaynaya Kismaayo waxa laga barakicinayaa biimaal qoladii la yiraahdo awramo leh waxa laga barakicinayaa midkii mushungili wixii la barakicinaa waxa lagu abuuray ogaadeen gartay istirsifaan waxa la yiraahdaa ka socoto istirsifaan haye maalin kasta diyaaradahaas Kenya waxay duqeynayaan meeshii la isleeyahay alla ilaahay waxa joogo laba oday ama saddex oday oo nabadoono oo qatar oo mushungili ama oo Soomaalida yararka kale oo ka hadli kara arrimahan meeshii jirta la duqeynaa xallee maanta saldhigyada shabaab aan soo duqeynay gartay dalxa awood uma laha maanta inuu ka hadlo dalxa naag ninay jaab gashato waa ka weyn professor aqoon la waaye laakiin maslaxadiisa iyo dantiisa waxay ku jirtaa maanta haddii uu ka hadlo yiraahdo dhibaatada jareer weyne lagu hayo saas waaye idina wax ka qaban mayso naftiisuna waa ku weynaya gartay Allah una xariisteena inuu dhintaan u maleynaya Sheekh Jaamac Xaji Xuseen waa taqaanaa maleynaa aad Sheekh Jaamac Xaji Xuseen wuxuu yiri baarlamaanka ayadoo Eldoret la fadhiyo ayuu wuxuu yiri qad qaamati salaad qad qaamati falaax ayaa la leeyahay 17 ina soo istaagtay 275 ruuxan ku fadhinaa 17 inaana ilaahay dartiisa soo istaagtay ma Soomaaliya ayal baan ku ridnay mase waxbaan u qabanay yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun haye rag baa taagan kristaan nahay waxaan rabnaa kuraastii baarlamaanka aan ku lahayn oo kristaan aan ku lahayn markaas la yiri nin kastaba qabiil ku dawfeelay kristaan daatiin kristaan hawiye ama kristaan daarood ku dawfeela inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka naxliga ma yaro garoomadii ku yaalay magaalada Muqdisho oo basketka iyo kubadda cagta lagu dheelay oo dhalinyarada sportiga lacagta ka aruursanayeen shabaab wuxuu ku soo rogay ninkii garoonkaasi ku dheelo garoonkiisa lagu dheelo waa dambiile qoorta laga goynaa shabaab garoomadii Muqdisho lagu dheelay hadda wiigan aan ka hadla xaaladda xamaran ku soo galay haye wasiir oo amniga hadlay oo dhahayo amarkaas wax qaadan kara ma leh wax oo ganacsatada lacagta siinaysa shabaab waa qalad oo yiri wasiirkaas naftigiisa baad u bixiyaa asaga haye xildhibaan kasta baad u bixiyaa ganacsade kasta dukaan kasta waxa laga qaadaa bisha markay dhamaato xisaabtiisa Arsenal u dhiibaa hadduu farmaajo wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxtooyada intuu dhaxayso hadduu marayo ilaa iyo 50 wada la xirayaa waa isgooska Sanca waa taqaan ilaa iyo Tarabuunka waxa ku xiran dhagaxaan wadooyinka hal jidcado oo la furan ma jiro haye markii la soo doornayna waa kiilahay aniga hadii la doorto wada xirnaanaysa male marka shacabka Muqdisho nafsiga ay ka galeen xasan Sheikh Maxamuud miskiin oo
iska gurguurinayo gurguurta ay yidhahdeen nafsigay ka galeena ilaahay ka jeebaya gartay marka waxaan dhihi lahay fanaankiisa wuxuu yidhi amba dhamay qaraarkee waa inaad dhedhemisaa marka waxa waaye waa lagula dhedhemiyey qaraarkii beesha samo ama jareer weyne wixii ay dhedhemiyeen qaraarkii cabeen waa lala dhedhemiyey ha ku bishaaraystaano maanta waa lala qabaa dadkii tun weyn ahay dadkii tun yar ahay dadkii nijaas ahay dadkii reehebel ahay dadkii beeraha oo dhici jiray dadkii webiyada dhici jiray maanta waxa waaye doonta isku meelay noogu joogtaa waayahay adeer waayahay khayran ku rajaynaa kolley waxaan rajaynayaa inaad mar kasta markaan soo galo inaad macnaha facebookayga igala soo qaybgeli doonto aniga waxaa waay jareer keliya aniga waxaan rabaa inta samaha jecel oo dhanaan macnaha aniga u gahan haajiyaa marka soomaali weyn oo samaha jecel ayaan rabaa inaan macnaha wixii meesha dalka yaala in aan macnaha aan ka wada hadalno iyadoo aan dhexgelinayo danaha macnaha markaasayto beeshayda u gaarka ana waan dhexgeliyaa qoomiyadayda laakiinse ma ihi qof maanta oo leh soomaalidaasayto way xun tahay kan waay soomaali way wada xun tahay aniga aan hadlaya ayaa qoomiyadayda qaar xunaa jira oo cad xaaraana ku jira sida hadda ninkaanayto dalha ay leeyihiin oo kale waa cad xaaraan nagu dhex jiro waayo de ummadduu wax u bartay ummaddii wax uu bartay aqoontiisa waxba ugama taro war inan gumeed naag ayuu ka cabsadaa oo dad kolkiisa uga hadlaa yahay horta waxa waaye qofka bini aadanka hadduu aaminsan yahay saacaddii rabbi caloosha hawihiisa asoo ku jiro u qadaray inuu dhimanaya inuusan dhaafin hadduu aaminsan yahay xaqiiquu ka hadli lahay iimaankiisa ma gateen nasabadiisa ma gateen dadkiisa ma gateen waxa waaye marka intii xildhibaane oo meesha xasan midkii khayre uu magacaabay ama wasiire ama wasiir ku-xigeene ama agaasimo uu magacaabay war waxa jareeraad ka hadlaysaa ummadii kale ma leh waxaan murusadii mareexaan ahayn oo jaga meeshaan ka hayo ma jirto wax alla wixii abgaal habargidir udeejeen jijeele xawaadle gaaljecel hadda sambalow shawaal ridee nabad sugidda dhan maxay cidlo u tahay waxay cidlo u tahay waxaa yidhi wax la magacaabay male nabad sugidda wuxuu yidhi nin mursadaan soo magacaaba markaasuu farmaajo wuxuu yidhi waa markii aan kursiga labadana weyn lahayn uu yidhi meeshaas booskaas wuxuu yidhi 4.5 wax lagu qaybsaday xawaadla leh waaye nin xawaadlo oo mursado dhaleen ama mursado jeebka ugu jira la raadin haddii la waayo saasay jalo u ahaaneen inna lillahi hay waaye dad badanaa le isoo qabo kowdhe adeer khayran ku rajaynaa insha allah kulley waa wada xiriirani waaba jeclahay qofkii aan xaqiiqada ka hadlaynin habeenada kaleeto soo qabashada ku soo dirno qofka xaqiiqada ka hadlaynin war dhammaaday waa adeer hadduu qabiil iyo caayo iyo aflagaado qabiil lama caayo qof shaksi lama caayo laakiin wixii xaqiiqa ilaahay kugu ogyaa la sheegaa aniga soomaalida qoomiyadan jareertaanba ka ogolaynba inay macnaha soomaalida ay caysaba aniga markii aan arkaba sidaas waxaan idhaha ya adeer na kala daa waayo dhe aniga caay meeshaan aniga wixii jira in laysu sheego oo laisku waaniyo oo keliya ayaan rabaa wax kale ma rabaani ilaahay subxaana watacaala tawfiiqda ana waafajiyo xaqana ilaahay ana tuso qof kastoo baadiyeysan oo islaamana xaqa laa tuso آمين يا الله آمين إن شاء الله عليك إن شاء الله خير. أدعوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا نعيمه. إنسانك محمد عمر. قالوا كم Oh no, balaga saaran soo aqbal leh. Kan because the same point. ما عادي وأنا جرب بنيك. I don't know waxaa saaran soo qaban karo. أنت ما لقى بحين كرم أو كروا كبحين جيران.
Peanut saaran again. Wujudid mase unicorns. Asagoo nuqdaa balaada ku saarana ku dhig oo saaq bal ku dhig sanko. Saaq bal dhali. Saaq bal lagu dhig ku dhig. saaq balan Saaran. maxamed cumarow de waxaana meesha ku arki jireen aan ku arkayo kowde biin balooga macnaha isoo aqbal bal isoo aqbal balooga ku saaran isoo aqbal baloog baa ku saaran isoo aqbal maxamed cumar waa soo wada suug السلام عليكم. الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدير يور نوضع ذير البريان واسويني بريها مكو أركينين وحواي مشغول كأسكبت بلا آدم إسوايا لير أرنا كالجيسي ها عدك لو عدك ولا لما جير ودعيا عدك لما جير ودعيا ما هذا الو أدير وكم غلا موضوع معكو سابسية موضوع codka macnaha laba jeer oo kala maqluya maxaa dhacay codka halo waa ku maqlaa qadkan xogaa waa iska yar ciladeysan yahaye waa ku maqlaa halo adeer yaxyi waa ismaqlihayna laakiin codkiya laba jeer noqono laba jeer codkiya laba jeer noqonaya sugbal mar kale aan kugu soo noqonaa mar kale haye masuk asagaan ku noqonayna maxamed cumar booga saaran بلوك ayaa saaran soo qaban kartid mise بلوك ayaa saaran soo aqbal hadda mi soo aqbalino hadda ku celi mar labaad soo aqbal bal maxamed mar labaad soo aqbal gabadhan tantan كين قادر فؤاد فؤاد كان لو قبل انت سوق مقولي عادي سوق وقرن ما فؤاد وكان كان وجد هذا كان سوداء قبطي كان ما هذا انت سديد ما اسبي كنا كان مقوانا هل دينو ما حرمك قبصنا
وانكسو منصور هير هذه مركب كان بعد محمد محمد كان بعد اوكي ولي اوكي واقنا اوكي هلو 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 اي ورن هذا معك الحمد لله حالتك كورن هذا والله واسكفي عنا الحمد لله ما شاء الله قدك يا حوغا يرعي اللي اسمعي قدك يا ير الى اسنام هي مرفوعه وما الله موضوع اول اللي باندا Soomaali baandida saddexda maamul goboleed Hirshabelle koonfur galbeed kolley fasax bay ka yimaadeen waxay soo arkeen la rabay in macnaha ay u soo bandhigaan kolley baarlamaanka ka hadlayo oo dhibaato ay soo sheegeen aan maqlihayna ma jiraan marka waxay haddii iyagu sida ay oo doodi karo masaakiintaasito ra-iisul wasaare jira u doodi karo masaakiintaas ra-iisul wasaare u dooday male xildhibaan u dooday marka masaakiinta yaa u maqan yaa u dad ah madaxweyne hadduu aamuso oo ballan qaaday oo masaakiinta waxqabad u samaynayo ra-iisul wasaare hadduu aamusay xildhibaankii lasoo doortay bariiskiisa oo fasax uu qaatay intii yareed uu qaatay buulashii oo gobolada oo qaxootiga ay ku joogeen dadkiisii soo cunay oo haddana soo noqday xamarku soo noqday oo markaasi haddana bariiskiisii kale hodheel rabo inuu ku cuno bal masaakiinta yaa u dad ah maxamed cumar oo intaasaa lisweydiinayaa adeer horta meeshaan wax laisku daaliye ma yaalo maskiinna meeshaan ma joogo wax maskiin ah hadda Soomaali joogo haw yaraatee ma jirto ee waxay ayaga qaateen le waay ma fahmi gartay adiga haddii culayska uu kaa bato haddii aad iska fardhisid macnaha waa iska fardhin karta haddaa ugu talgishina culayskaas iska dhigtid laakiin inaad wadwadid hadaaratidne ma iska dhigi kartid waa wadaysaa waa wadaysaa dameerka nafkiisa markuu culayska ka bato wuu fadhiistaa laakiin anaga dameer waa ka xoog badanaa culayska oo soo nasaaraya iska sii ordaynaa been ma ahan taas marka adiga madaxdaada adaa iscaburimaana madax kuma aysan xaqiiqda kaaga hadlo waxaan ku eedeynana madaxda qalad waaye oo waa idab darada dhan ba anaga waaye inaan meediya soo istaagno aan ka hadalnana waxba kuma heli karno waxaan wax ku heli karnaa oo keliya midnimo iyo wadajir ee dhalinyaro tashato SYL hadda waxa ahayn 7 qofood waaye macnaha dad hadda Soomaaliya guusha u horseeday 7daas qofoodna yani rag oo khatar ah oo hadda jareer weyne ah horta fikirkooda meeshaas horta aan lagu gaaro horta heerkaas gartay oo 3 nin ah saqaaxudiin nin liiraan oo yahay oo jareer weyne ah marka alxamdulillah shukru anaga horta waxa siyaasiyiin waan leenahay aqooniyaan waan leenahay wax garadna waan leenahay laakiin disagreement yaa jirta macnaha is afgarwaaya jirta horta waxaan tanna waxa looga bixi midaana waxa looga bixi karo waa halkaas siyaaboodna waxa weeyaan horta in la isku soo baxo la isfahmo group oo ma soconayaan iyo haween oo yani ragga dhiirigeliyaan way anaga ma waxni qaban anaga ma xaqina dhinayna naaga dhahaan hal jareer xataa ma ka arkaysid Facebook inda shareer xataa hawada tadirta ko raggana waxa baraaruji was number 1 waxa ka ebdhaha ka gudub taas meeshaas naga dhig horta xagga noo dhig midda kale dhanka xildhibaanadan ku sheegaa marka
horta madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweyne presidentiga ugu wanaagsan waa horta adduunka maku dhaha madaxweyne xun waa fiican yahay ceel butwaaqoo aaday wuxuu aaday wixii dadkiisa waa dib u heshiisiin soo dhex dhigay madaxweyne fiican waa maarkino madaxweyne fiican waaye adi marka maxaa lagaa rabay marka saasada maxaa lagaa rabay inaad wax ka dhex baxsata adaa lagaa rabaa oo maskaxdaada aad ka shaqaysiisid golweyn iyo boole iyo dhulkan oo kismaayadan rafaadkan meelahan ka taagan ilaa iyo jowhar state iyo ilaa iyo beledweyne ma soo mari madaxweynaha soo marin muxuu soo mari waaya yaa ku nool daarood maa ku nool dadkiisa ma joogaan maya ma joogaan waa aragtino marka adi maxaa lagaa rabaa marka wax walba oo aragtid iyo siyaasad walba iyo wax walba oo aragtid adi waxaa lagaa rabaa inaad adiga marka naftaada horta aad xisaabisid oo dadka siyaasiyiinta waxay sameynayaan aad fiirisid oo waxyaabo badan meesha uu kagaaga bahan yahay adayga jareerka ya adayga jareerka marka inay waxyaabo badan meesha ka baxaan okay taa haddana boonti kale weeyaan xaggaas horta naga dhig siyaasiyiinteena meesha annaga inay noo fadhiyaan iyo kale u fadhiyaan horta waa in aan kala saaranaa waxaan ku kala saari karnaa annagoo gaarayno 200 ilaa 300 oo qofood camal gaarayno waa in horta xafiiskooda hortooda aan fadhiisanaa horta siyaasiyiinta oo dhan nin walba oo kursi noogu fadhiyo sidaan uga helno jawaab cad ah oo aan caalamka u gudbino si aan u dhahno dadkan boor waayo oo annaga meeshana loo soo joojiyey oo magac yeelo ah baronoon waayo dadkan marka sidaa daraaddeeda waxba ma noo ahan raggaan si aan annaga ku dhahno laakiin haddeer ayaga waxay marmarsii kaaga dhiganayaan annaga inna loo imaaday maan wax u qaban weynay adi kaligaa la hadlaya maogtahay adaa daryaxyaa ee garaa lagaa helayaa markii aad wacdo waxaa leedahay adi maxaa dhacaysee wax u jiraan dhalinyarada saan waa kan ani wax ii imaadi maa ani wax u qawaayaa lagu dhaha dhalinyaro ii timid maa wax u qawaaya maxaa sheegi adi wax aad sheegi kartid male maya adi micnaha siyaasiga tusaalan ka wadaya tusaale ahaan warkeyga maqal waxaa waaye ani ada micnaha hadalkaaga iyo hadalkeyga weligiis iskuma hor imaanin laakiin hadda hadal yaraan ku dhihi kara haye annaga inaan wax weydiisano xildhibaanadayna ama siyaasiyiintayna ma ahan ayagaa laga rabaa inay wax nooga yimaadaan ay wax noo sheegaan xaal meeshuu marayo ayaga haddii meeshii ay micnaha ay joogaan oo maanta garab ay u baahan yihiin taageero u baahan yihiin maal ha noqdo cod ha noqdo wax kasta ha noqdo inay ayagana weydiistaan waay annaga markaasaan annagana kubagarayn karnaa aan dhihi karnaa war niman yahumiya ilaan haddaba marka ayaga oo doorasho ay noqoto codadkayay ka raadsadaan ya codkayay ka raadsadaan codka ya marka haddiiba oo ayaga markay wax codkaba annaga naga raadsana markay codka naga raadsanaya waxay dhahaan saanaa jirta kanay jirta kanaa jira oo haddaba mayna dhahaan war nimayow miyaa meeshaas innaga idinkaan idin joognaa aan idin joognay laakiin dhibaatada oo meeshan taalo ya dhibta oo xayiraysa inaan wax kaga qabano waa dhibta haddii idinka maanta sidaa iyo sidaa u dhaqantaanna dhibtan waan ka gudbaynaa hal xildhibaan ama hal siyaasi oo ugula noqday maxamed cumar ma haysa adeero horta cawadu ay qusulsiisa aan cawad zaid ay qusulsiinaysaa ma fahanti haye
وعارتا معناها هاد بروفيسور محمد عمر دلحة أمبو إنكي إن مجيسي نكان عبد الله عولاد روبل إيو نكان عيمو إيو dadkaana hataa miya inay hadda ku istaagaan ay ku dhahaan yacni waxaana aan idinla soo doonni waa sugaysaa horta hadda waaye sheeg adiga seed igu dhihi kartaa adeer nin waxay leeyihiin nin noo yimid oo waxna weydiiyey ma laha maxaad u leedahay taas marka ereygaas dartiisan kuu dhahay aniga anoo og nimankaas inay imaanaynin anoo og ya ayaad i dhahday nimankaas id u tagtay wax weydiinayso siyaasiyiinta ma jiraan adaa i dhahay ka jawaab arrintaas horta fiiri midaan kuu sheegaa horta siyaasiga sidiisaba horta inaad adig ka awood badan tahay mala socota ade waa la ogyahay ana siga soo doontaa waa haddaad isku xiran tahay inaad ka awood badan tahay mala socotaa haye adiga oo 200 ilaa 300 inta aad ka kooban tahay adigoo diyaarsan haddii aad ninka xafiiskiisa hortiisa aad istaagto annaga intaanoo sano waxaad cuni kartid waad cuntay intaanoo sano buskeetigii cunaysa waa cuntay hadda iyo dan haddeer la xisaabtan dhabban kula imaanay waxaan doonaynaa annaga inaadna siisaan xaqeena oo xaqeena nala siiyo meeshan haddaadan waxba ka ahaynan hana loo caddeeyo haddii raggaa yidhaahaan haddaan dhahna annaga aan dhahno dhallinyaradeena isu xiray ilaa iyo 203 intaan gaaraynaba saas aan dhahno wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inay wax badan iska bedelayaan hadday diidaanna caalamkaan tusaynaa waayo lambar 4 ilaa iyo waxaan soo aan mudaaharaad soo qaadaynaa ilaa iyo siidka waan ka soo bixaynaa wili xataa ما فهمتي waxaan qaadanaynaa boorar waxaan doonaynaa siyaasiyiin oo annaga oo naga war haysaan doonaynaa aan ku qoranaynaa boorarkan xitaa ma hadlayna haddii aan hadalka ka baqanayna xataa ma fahantay ha marka waxaan doonaynaa we want to peaceful and good life aan leenahay annaga micnaha waa nabad buuxaan rabnaa iyo markaasaan ku qoranaynaa boorar waan soo baxaynaa waxaan istaagaynaa marka taalada kadibna yacni caalamkan tusaynaa inay waddankan annaga aan ku dulmannahay inay afrika joogto horta waddankan maba loo maleeyo niyo horta waran kuu sheegaa niyo horta waran kuu sheegaa horta sida adiga sheegayso waxaa way annaga xildhibaana meesha kuma hayno magaalo madaxda waxa joogana dadna ma aha waa xaar waxa magaalo madaxda jooga oo sheeganayaan Soomaali baantuuda hadday caawa i maqlayaan wax ay yihiin ilaahay abuurtay ma jiraan waryaa xilligii maanta oo maxaa la dhihi jiray jabhadii oo aydiid iyo jabhadii maxaa la jiray muuse suudi miyay ahayd ma aqaan oo jareer aan hadli karin ayaa jareer intay soo wada baxday warya ka leeyahay sanka iyo neefta kugu qaadin miya mooshi waxaa samowa soo socota war dadkii sidaa ahaa xamar kuma noola miya hadda brother waxaan kuu sheegayaa raggii horta raggii waa la iibsaday rag la iibsan karaan haddeer imaaday rag la iibsan karaa imaadeen ewel waxaa joogeen professor Arbow iyo Moolid Macaane haddana midda kale process walba oo la sameeyay waxay u baahan tahay horta in la sameeyo rag badan oo isku dul xiran ilaa 4 ilaa 5 oo marka qof oo geeriyoodo si hoggaankiisa ninka loo qalmo oo markaa uu sii joogo si yacni wili hoosha u sii burburin sida daraadeed marka hoosha dhan waxay ku soo koobneed ewel Moolid Macaane iyo Arbow labadoodana tii rabbi markii ay ku imaatayna meeshii waxaa imaadeen rag la iibsan karo la kala goyn karo marka sida daraadeed marka maalinkaas jirso oo u dhumay ilaa hadda waa dhunsan yahay shirka soo kici doona ma ogi aniga marka waxaan kuu sheegaa dhallinyaradeena wax walba naga falmaan annagana wax walba samayn karna haddii aan noqono dad gacmaha isku xiran laakiinse dad gacmaha isku xiran ma rabo manihi ilaa iyo adduunka la kor laabale sida aan arkayo because waa ka niyo jabaan ahaanteeda because dad hadda micnaha ma arkaysid oo karti leh oo maanta rabaan inay dhintaan amba cabsanaynin ma arkaysid waxa la nin kasta waa cabsanaa haddana teeda kale cabsi amba cabsanin waqtigaaga la dhimanaysaa mana dadkeen waxaan la yaabanahay sida annaga bini aadan uga cabsanayno haddaan ilaah uga cabsanayn annagoo noolaa wallahi jannada nagula bishaareen la hadda xaqiiqada kaga hadlo gartay marka
marka ilaahay subxaanahu watacaala hana horta guusha hana siiyo. Guusha waxayna ku imaan kartaa qalin keliya ma ahan, qalin keliya waxba ma lagu keeni karo. guusha waxay ku imaan kartaa in yacni qalinkana la qaato qorigana la qaato. qalinan qaadana hadii qori Afrika qalinan qori wadanin wax la sheegi kara maahan. qalinka haduusan qori wadanin waxba ma ahan Soomaaliya haddaan xaqiiqda kaaga hadlo. meeshaan maxaa taqaanaa mataala yaa ku soo diray yaa taqaano taala meeshaan yaa ku soo diray adiga ma fahanti gartay marka marka waxaan kuu sheegaa waxba dadkeena yaanan dadka madaxdana aflagaadenin. waxaan annaga hadda u baahannahay dhalinyaro isku xiran ilaa iyo gaarayso 300 400 ilaa 1000 xataa iska hadii la heli karo oo la baxo madaxda loo tago la yiraahdo annaga intaana waxa soo cuni kartiin soo cunteen. waxaan u baahannahay ragaan wixii annaga aan leenahay oo xaquuq ah intaana loo shaqo geliyaa rabnaa. haddaadan noo qaban karin meesha noo joogin hana loo cadeeyo. haddii naga sii diidaana inaan soo baxno kadibna aan mudaaharaadno oo dadka dhan caalamka ay arkaan raggan intaanoo sanaa madax laaga taagnaa maantana yacni dad ay waayeen oo dadkooda ah oo wax u qabto kadib caalamka laga arkaa waa laga hadlaa arrinka. laakiinse adina dadna ma istusinaya kii madax ahna uma tegi karni waxaan dhihi karnana ma lahan haddii adig aad leedahay adi marka waxaa waaya dameer farow dhaqankiisa leena anaga hadda xaqiiqda kaaga dameer farowga hal shabeel hadduu soo dhex galo way kala cararayaan mana iska celinayaan. marka dhaqankaas haddii la bedelo wax badanaa bedelma. marka insha allah ilaahay khayrka hana waafajiyo. guushana way imaanaysaa laakiin guush kuma imaanayso inaan hadda Facebook aan live soo galgalo oo adna ka hadashaan anigana ka hadlo kuma imaanayso. marka waxaa la yidhi hadal gabdheedna darsaanka ma dhaafo. marka saas oo kale in annaga warkeena noqdo looma baahno. wax walba wuxuu wanaagsan in ficilkooda la sameeyo. wax walba wuxuu ku wanaagsan in ficilkooda la sameeyo hadduu ilaahay idmo. insha allah khayr ku rajeynaya dadka kalena hadeer dadka kalena jaanis si insha allah waan ismaqli doonaa. khayr badan baan ku rajeynaya adeer macaan. عباس علي حاجي insha allah عباس علي حاجي او يسوق اقبل marka hore adiga isoo aqbal عباس علي حاجي markaasaan ku soo qaban karaa. adigana Umar sidoo kale Umar Hamadi sidoo kale isoo aqbal. بالغراب ورنا
عمر هنادي عمر أنا أبو كجي على عذر وادي الدنيا بلوغ أوكلا سارن بين كومنتي يا سارن بين كومنتي سوقل أخياري سوقل محمد سيد عبد الله وأكو سلامي هذا وأكو سلامي وأكو سلامي سلطان علي وايدين سلامي دمان وايدين سلامي دمان انت قدك كجرت وايدين سلامي سومالي بحال اسكو ديلايان غران لانahay waxa la isku dhacayo la isku dilayo la isku baabi'inayo ya taasan macnihiisan fahmi la'nahay qofkay dan ugu jirtana ma garanayno kullayba wiilku waa maqan yahay adeer maanta wiilku waa maqan yahay iskooluu jiraa marka adeerkaaga keligiis le fadhiya maanta
الحمد لله رب العالمين كليبا إن شاء الله بإذن الله الكريم إن شاء الله كليبا دنا وحا اسكو إيمان دونا أدي إلهي رالي كنغضو بريتو وقتي إذنك أدي إلهي رالي كنغضو قبتين مغربدي دنكا أفريكا مركز سعادين أي تاي اسكو إيمان دونا كلي هدنا وانك بحيا ميلان عادي روا انتاس ينبجيلي السلام عليكم